شركة بولري فرانسيسكا شركة aad u ballaaran oo wadamo fara badan oo galbeedka Afrika kule dekada ka dhistay kana maamusha dhawaanna Soomaaliland iyo dekada waxa dhex maray wada hadal hordhac waftigii dhawaan madaxweynuhu hogaaminayay aanu dhowr wasiiran kamid ahayna aanu ku weerinayno waxa arrimaha aanu ka hadalnay waxa kamid ah marka laga yimaado cilaaqaadka iyo xiriirka Faransiiska iyo Soomaaliland waxa dee ugu badnaa waxa weey horumarka dekada berbera waxay u baahan tahay inaynu horumarino waxay u baahan tahay inaynu ka dhigno dekad caalami ah oo gobolka oo dhan u adeegta imika Soomaaliland way ku fulan tahay way naga baahan tahay laakiin waxaan doonaynaa inay noqoto goob dhaqaalaha dalka wax weyn ka tarta oo dalalka jaalka oo dhan isticmaalaan goob ganacsi noqota dariiq dheer oo koridor ilaa wajaale isku xidhay wanaagsan loo dhiso ilaa dariiqa inta hareeraysan laga wada dhiso businesses iyo baamushtar kaaba oo dhaqaalaha wax ka tara shirkadda iyada ay berberi u xirantahay iyo gaar ugu xirantahay maaha berberi iyo dekadeedii iyo hawlaha kale ee dalka ka socda haamu sidaalku ay kamid yihiin dariiqyadu kamid yihiin waxay u furan yihiin cid kasta oo heshiis wanaagsan oo isku dheelitiran oo dalka wax taraya Soomaaliland la gali kartay fronta geesta kale wuxuu wasiirku ka hadlay kala xadeynta ganacsiga Soomaaliland isagoo tilmaamay in wasiirku bilaabi doonaan habka lagu kala xadeyn doono ganacsiga Soomaaliland isagoo ka hadlay amuurta wasiirku waxa uu yiri in ganacsiga la kala xadeeyo oo aan ganacsigu noqon mid u gaara shakhsiyaad kooban waa in kheyraadka dalka la wadaaga waa inaanu qofku noqon ka dibadda wax ka soo iibinaya ka dekada keenaya ka jumlada ku iibinaya hadhow tafaariqeynaya arrintaas waxay meesha ka saaraysaa ganacsatada kale ee dalka arrintaas waxay yareynaysaa ka qaybgalka dhaqaalaha dalka iyo ganacsigiisa ay ka xayiraysaa mujtamaca kale ee Soomaaliland arrintaasi waanu ka bareereynaa waanu ka hawlgalaynaa waxaanu ku jirnaa imika la tashiyo aan khubaro caalamka la tashanayno iyo dalal kale nala mid sidii arrinta ay u maareeyeen ayaanu imika daraasad ku